kulanti wanaagsan daawadayaal soo dhawaada muuqaalkan waxaan idin kula wadaagi doonaa ciidamadii daacaddu waa madaxweynihii hore ee maamulka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen mar kale gurmudyo xoogan ayaa gaaray duleedka magaalada Baydhabo maanta waxay ku soo bandhigeen cudud ciidan qaar ka mid ah waa markaas ciidamadaas la soo bandhigay oo warbaahinta la hadlay ayaa muuqaalkan ku eegi doonaa dhinaca kalena dowladda federaalka Soomaaliya iyo xiriirka u dhaxeeya dowladda dalka Kenya ayaa si xumaanaya maanta ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya waa markaasi Jibriil Cabdirashiid Xaaji Cabdi ayaa markaasi waxa uu iska celiyay aqoonsigii uu ku haysay safaaradda Soomaaliya ee Kenya anigoo ah wasaar ku-xigeenka dalka waxaan maanta go'aansaday inaan dhalashadii aan ka haystay dalkaas aan celiyo haddii Ilaahay yiraahdo oo aan insha Allah ay nagu filaan doonaan Kenya aan haysanay buluuga ah oo nagu filaan doona haddii kadib Ilaahay idinkiisa waa maalinimo isniina taariikhdu ku aasisatay 1 bisha 3 ee Agoosto sanada 2026 haddii aynu ku bilowno magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaar ku ah maanta waxa lagu soo bandhigay ciidamada daacaddu ah madaxweynihii hore ee maamulka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo marar kala duwan weerar ku qaaday magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaar ku ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya duleedka magaalada Baydhabo ayaa maanta waxa gaaray ciidamada daacaddu ah madaxweynihii hore ee maamulkaasi waxayna ku beereen ciidamadii hore oo halkaas ku sugnaa warkacay afayeenkii hore ee maamulkaasi Ugaas Xasan Cabdi Maxamed tani markii xukuumadii uu hogaaminayay Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen laga wareegay magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaar ku ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waxa soconayeen dhaqdhaqaaqyo kala duwan ay wadaan ciidamada daacaddu ah Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo iyagu alaaba marar kala duwan weerar ku qaaday magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaar ku ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Laftagareen oo markaasi kaashanaya saaxiibadiisii hore ee siyaasadda saamilayda maamulka koonfur galbeed Soomaaliya uu kamid yahay taliyihii hore ee ciidanka asluubta General Mahad Cabdiraxmaan Aadan iyo sidoo kale wasiirka hore ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo ka tirsan maamulkaasi ayaa isagu waxa ku sugnaa magaalada waa markaasi Nairobi ee caasimadda ku meel gaar ku ah markaasi xarunta dalka Kenya magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya waxa ka soconayay dhaqdhaqaaqyo kala duwan ay wadaan ciidamadii daacaddu ah Laftagareen iyagoo markaasi sheegayba alaaba inay weerar kala duwan ay ku qaadaan magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaar ku ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya duleedka magaalada Baydhabo maanta waxa lagu arkayay hub iyo markaasi gaadiidkan aad aragtaan oo ay sidoo kale soo bandhigeen xubno ka tirsan ciidamadii daacaddu ah Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen warar soo baxay maalmihii dambe ayaa sheegayay in Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen looga yeeray dalka Itoobiya caasimadda Addis Ababa ee wadanka dalka Itoobiya halkaasi waxa la sheegay inuu markaasi uu kula hadlayay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed waxayna kala wada hadlayeen ciidamada Itoobiyaanka ee ku sugan magaalada Baydhabo garoonka diyaaradaha Shaati Gaduud ee Baydhabo sidoo kale aqalka madaxtooyada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waxa la sheegay Laftagareen iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Itoobiya aan iraade ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed inay ka wada hadleen xiisada u dhaxaysa maamulka koonfur galbeed Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka haatan uu hogaamiyo Shaqaada Nuur Aadan Madoobe dhawaan ay ahayd markii warbaahintu ka soo hormuuqday waa markaasi taliyihii hore ee ciidanka asluubta General Mahad Cabdiraxmaan Aadan waxa uu sheegay in markaasi Aadan Madoobe marnaba oo habeen si wanaagsan oo seexad doonin waxa uu markaasi ka dhawaajiyay hadalla markaasi si weyn ugu hor yimid waa markaasi xukuumadda uu hogaamiyo waa markaasi ra'iisul wasaare waa markaasi gudoomiyaha hore ee golaha shacabka haatan hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Shaqaada Nuur Aadan Madoobe tani markii la doortay Aadan Madoobe oo markaasi loo magacaabay hogaamiyaha ku meel gaarka ah markaasi hogaamiyaha rasmiga ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waxa soo baxayay warar sheegaya in Laftagareen oo isagu markaasi alaaba weerar kala duwan uu ku qaado oo markan si weyn uga cariisnaa xilkan uu ku soo baxay Shaqaada Nuur Aadan Madoobe Aadan Nuur Aadan Madoobe oo loo yahay in doorasho markaasi si booba kaga dhacday deegaanada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya uu kula wareegay xilkan ayaa waxa la sheegay in markaasi uu si wanaagsan u xakameyn la yahay maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waxaana alaaba weerar kala duwan magaalada Baydhabo ku qaado ciidamadii daacaddu ah Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo xilliganba maanta ama markaasi sawiradan aad aragtaan iyo muuqaaladan ay muujinayaan in markaasi maanta gurmado kala duwan ay gaareen Laftagareen ciidamadiisa hore ayaa saraakiil badan oo markaasi ciidamadiisa ka tirsan ay uga goosteen waxayna ku beereen ciidanka Aadan Madoobe sidoo kale ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo sida weyn uga dagaalama maamulka koonfur galbeed Soomaaliya maalinnimadii shalay ahayd gelinkii dambe waxa magaalada Baydhabo gaaray taliyaha ciidanka xoogga dalka General Ibrahim Maxamed Maxamuud iyo sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida darajada koobaad Xasan Cali Nuur Shoote iyo saraakiil ka socda dalka Turkiga waxayna halkaas u tageen dardargelinta howlaha ammaanka iyo sidoo kale la dagaalanka kooxda Al-Shabaab
taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Ibrahim Maxamed Maxamuud oo isagu dib dalka uga soo laabtay isagoo ka yimid magaalada Kampala caasimadda Uganda halkaas uu ka qayb galay shir looga hadlayay xaaladda ciidamada AMISOM ku sugan gudaha Soomaaliya ayaa isagu maalinimadiisa lahayd waliba galankii dib uu ka tagay garoonka Shaati Guduud ee magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaar ku ah maamulka koonfurta ee Soomaaliya waxa halkaasi u tagay howlo la xiriiro dardargelinta sidoo kale saraakiil Turkiya ayaana markaasi kamid ah iyo sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee darajada koobaad Xasan Cali Nuur Shoote ayaa isaguna qayb ka ahaa saraakiisha gaartay magaalada Baydhabo aadan madoobe ayaa la kulmi doona saacadaha soo aadan iyo todobaadyo soo socda oo ay kala hadli doonaan dagaalka ciidamada lafda gareen ee Aalaba weerarada kala duwan ku qaaday magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaar ku ah waxayna markaasi ay kala hadli doonaan ama ay wajihi doonaan ama ay ka wada hadli doonaan sidii loo wajihi lahaa ciidamadan maanta gurmiyada xooggan ay gaareen ee lafda gareen ee Aalaba weerarada kala duwan ku qaaday magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaar ku ah maamulka koonfurta ee Soomaaliya lama oga halka xiisadu ku dabay doonto lafda gareen cagajugleen xooggan ay soo diraya Itoobiya iyo garabka Kenya si xogaa qarba ay tilmaamayaan ciidamada Itoobiyaanka ee ku sugan magaalada Baydhabo ayaa iyagu la sheegay inay isaga bixi doonaan magaaladaasi todobaadyada soo aadan oo markaasi way ku beeri doonaan dagaalka Tigray ee u dhaxay xukuumadda federaalka dalka Itoobiya oo maalmahan soo ifbaxay halkaasi oo Itoobiya si weyn ay ciidamadeeda ugu baahan tahay iyadoo markaasi dagaal xooggan la gashay xukuumadda Tigray iyo Eritrea oo iyagu garab iska helaya oo ka dagaalamaya waqooyiga dalka Itoobiya waxyaabaha ka soo kordhay ciidamadan daacadu ah oo markaasi baad aragtaan muuqaaladooda oo soo bandhigay digniintii ugu dambeysay wararkeena dambe iyo inta kula wadaagi doonaa bal markana haddii aynu fiirino xukuumadda Soomaaliya iyo sidoo kale xukuumadda dalka Kenya oo markaan khilaafkoodu soo shaabay ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya waa markaasi aan iraade waa Jibriil Cabdirashiid Xaaji Cabdi oo ah isuu ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka labaad ee dalka ayaa maanta waxa uu booqday safaaradda dalka Kenya ee ku taala waa markaasi magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya waxa uu halkaasi ku celiyay baasaboorkii ama sharcigii rasmiga uu ka haystay dalka Kenya sabab la xiriira Jibriil Cabdirashiid Xaaji Cabdi toddobaadyo ka hor waxaa loo diiday inuu galo dalka Kenya gaar ahaan garoonka dalka Kenya ee magaalada Nairobi ee Uhuru Kenyatta halkaasi waxaa ka soo celiyay xukuumadda dalka Itoobiya kulan oo markaasi golaha wasiirada maalinimada Khamiista uu la yeeshay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ku amray in si degdeg loo celiyo baasaboorada dalka Itoobiya xiriirka Soomaaliya iyo Itoobiya ayaan halkaasi ku xumaaday ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka dalka Saalax aan iraade waa markaasi ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka labaad ee dalka waa Jibriil Cabdirashiid Xaaji Cabdi horaan ugu soo noqday hogaamiyaha ku meel gaarka ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waxa uu sheegay in markaasi sharciga rasmiga uu iska celiyay haatan wixii ka dambeeyana oo na gaari doono gudaha dalka Kenya halkaasi oo Aalaba ay gaaraan waa wasiirada ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya canaan oo markaasi amada hadalla oo markaasi u jeediyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ku amray golahiisa wasiirada sidoo kale xildhibaanadiisa in si degdeg ah u celiyaan baasaboorkan ayaana ku soo aadaysa xilli waa markaasi ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka labaad ee dalka Saalax Majaamac ayraada waa markaasi raali ahaadee waa Jibriil Cabdirashiid Xaaji Cabdi inuu markaasi uu iska celiyo baasaboorkan dalka Kenya oo markaasi uu ku leeyahay gudaha Nairobi Jibriil Cabdirashiid Xaaji Cabdi iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale ayaa laga soo celiyay dalka Kenya halkaas oo loo diiday inay gudaha u galaan balse wixii inta ka dambeeyay dalka Itoobiya waxa ku kulmay wasiirada arrimaha dibadda dalka Kenya iyo sidoo kale ka Soomaaliya Cali Umar Cali Balcad waxa uu markaasi wasiir dawladda arrimaha dibadda wuxuu kala hadlay xiriirka Soomaaliya iyo Kenya balse uma muuqata haatan in Soomaaliya iyo Kenya ay markaasi ku kulmaan doonaan ama ay markaasi ku kulmi doonaan markaasi siyaasadda Soomaaliya waxaan xuduudka Soomaaliya iyo Kenya aan ognahay in dagaal fara badan ay ka dhacaan Kenya ay u saarayso dawladda federaalka Soomaaliya inay xiriir la leedahay kooxda Al-Shabaab waxyaabaha ka soo kordha wararkeena dambe ayaan iskula wadaagi doonaa aad baad u mahadsantihiin